kastoo isniina buu nebigu yidhi maalin kastoo khamiisa ayaa acmaasha addoommadu ay sameeyeen ee wanaagsan ilaahay la horgeeyaa addoon kastii oo ilaahay cibaadadiisa aan cid kale la wadaajin dembiga ka dhaca ilaahay waa u soo dhaafaa ilaa laba addoon buu rasuulku yidhi laba addoon dembigooga lama dhaafo camalkoogana ilaahay hortiisa laguma furo ilaahay wuxuu idhahdaa labadaa camalkooga u celiya dembigoogana ma dhaafayno ilaahay dhexdooda ka heshiinayaan in dhexdooda islaax ka ridayaan mooyaane kaanat baynahuma shaxnaa buu nebigu yidhi laba addoonoo dhexdooda cadaawtinimo iyo buqdi iyo isnacayb dhexdooda uu ka jiray camalkooga ilaahay jalla wacalaa loo geyn maayo dembigoogana dhaafi maayo celiya buu ilaahay dhaha kuwa camalkooga ha ii keenine ilaa aysa saamaxayaan iyaka dhexdooda waa inaan inagu iscafinaa waa inaan isku naxariisannaa waa inaan noqonnaa sida ilaahay sidii nebigeennu yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda mu'minku mu'minka kale wuxuu ku yahay dhis mu'miniintu sida dhagaxda dhisku ay dhagaxba dhagax u haysto ayay muslimiintu isku haystaan way isxoojinayaan way isku kaalmaynayaan way isku naxariisanayaan way isku damqanayaan way is asturayaan addoon walaalkii adduunka dusheeda ceebuu ku arkay uma qariyo ilaa hadduu asturo buu nebigu yidhi isagana maalinka qiyaamaha ceebigiisa ilaahay asturaya walaalkaa ceebtiisaan maanta qarisay maalinka qiyaamahee banka qiyaamaha khalqiga lagu fadeexadayn doono ayaa ilaahay ceebtaada ku asturi doonaa addoon mu'mina ayaa ilaahay u yeedhi doonaa uu soo dhowayn doonaa ilaahay raxmaddiisa iyo sadrigiisa ilaahay huwin doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkii hebel hebel ahaayo dembiga badnaa ma tihid markaasuu leeyahay haa ma garan dembigii maalintii halka aad ku samaysay ma garan markaasuu leeyahay haa markaasuu rabbulciza odhanayaa adduunka dusheediina waan ku asturo cidna kuumaa sheegin maantana dembigaaga waan dhaafee kitaabkaaga gacanteed midi ka qaado sucaal odhan doonaa kalimatu tayibatu sadaqa kelmadda wanaagsan waa sadaqad salaanta faafi afsu salaam wa atcimu طacaam wasilu larxaam wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam waxau nebigu yidhi war salaanta dhexdiinna faafiya dadkana cuntaysiiya riximkana xidhiidhiya habeenkii dadku markay hurdaanna kaca oo tukada jannada rabbigiin buu nebigu yidhi nabadgelyaad ku galaysaan